daawadayaal kulanti wacan oo habboon meel walba aad joogtiin ku soo dhawaada barnaamijyadeena oo nagu barateen maanta waxaan ka hadli doonaa iftiinka badda 5 arrimood oo cajiib ah oo habeenkii badda lagu arko. iftiinka dayaxa wuxuu dhaliyaa ashqaraarka dunida ugu weyn. nooleyaal cajiib ah ayaa badda gunteeda ka soo baxa marka ay ku dhacaan mawjadaha waxayna bixiyaan midab buluug ah. waa aragti arki karo marka uu gobolka dhaco oo galiya. nambarka 1 iftiinka ay sameeyaan noolaha badda ku jira oo muuqaal qurxoon u yeela badda. noolaha dinofidladis wuxuu bixiyaa iftiin buluug ah marka la taabto baddana way iftiintaa sida gacan biyoodka ku yaala Maldives. 2 noole iftiima marka uu mugdiga jiro. noolahan waa kan sameeya iftiinka ugu badan ee lagu arko badda dusheeda habeenkii. 3 iftiinka dayaxa wuxuu dhaliyaa ashqaraarka ugu weyn ee badda gunteeda. kalluunku wuxuu isha hoosteeda ku leeyahay xuub ay gasho bakteeriyada iftiinka bixisa. waxaa la moodaa in iftiin oo bilig yeelanayo. noolahan waxaa la yiraahdaa bobtail squid. wuxuu xiriir la leeyahay bakteeriyada iftiinka bixisa, sidaas ayuu isaguna u iftiimiyaa habeenkii. 4 yaxaas badda iyo libaax badeedka waxay ka tirsan yihiin iftiinka dayaxa. mid ka mid ah muuqaalada ashqaraarka leh ee Great Barrier Reef Australia ay soo saartay habeenka xilliga guga ka mid ah oo kaliya ayaa muuqaalkan la arkaa. Number 5 xayawaan cajiib ah oo dusha sare badda u soo baxa habeen walba. habeenkii oo kaliya ayuu noolahan badda dusheeda u soo baxaa. saaxiibayaal waa naga intaa barnaamijkeenii awal sugaysan ee 5 waxyaabood ee badda ka dhaca habeenkii.